cabdulaahi cali muudey waa arday dhigta fasalka saddexaad ee dugsiga sare iskuulka maxamuud mire ee magaalada muqdisho. cabdulaahi waxa uu ka soo jeedaa qoys danyara oo ballaaran, balse hooyadiis ayaa ku dadaashay sidii wiilkeeda ay ugu fara adeegi lahayd waxbarashadiisa xilli adag oo qoyskani soo wajahay. halganka waxbarasho ee cabdulaahi waa mid ay ku gadaaman yihiin sheekooyin dareentaabad leh oo soo maray marxalado kala duwan. bilowgii 2018 isbeddel weyn ayaa ku yimid habusocodkii nololeed ee qoyska cabdulaahi kadib markii ay u soo yeertay akhbaar naxdin leh oo sheegaysa geerida aabbihiis cali muudey oo alla ka sokow isagoo ahaa ilinka keliya ee wax ka soo galaan qoyskan. gudcur ayaa u dumay qoyska, waxaana soo gaabtay xawaarihii horumarineed iyo qorshihii nololeed ee cabdulaahi maadaama uu dumay deerkii kaga aadanaa waayaha adag ee adduunka. isaga iyo xubnaha qoyska intiisa kalena waxa ay isku diyaariyeen wajihidda marxaladda adag ee qoysku galay. 2018 markuu aabba iga dhintay waxaa la ii dhahay familkii waxay igu dhaheen aabbahaagii oo lacagtii video iskoolka kaa bixinaya uu dhintay markaan shaqo farsamo lagu geynaa shaqo farsamo ah galaysaa oo waxbarashada meeshaan iskaga ekay. cabdulaahi oo xilliga geerida aabbihii dhigtay dugsiga dhexe waxaa istaagay hayaankiisii waxbarasho, waxa uuna si murugo leh u macsalaameeyey saaxiibadiisii fasalka kadib markii ay qoyska soo wajaheen duruufo dhaqaale oo adag sababayna inay kari waayaan sii wadidda waxbarashada wiilkooda. waxa uu ahaa dareen xanuun leh iyo go'aan nololeed oo uu qaata kii ugu xumaa maadaama uu ka damayo iftiinka waxbarashada uuna isku diyaarinayo bilowga maalmaha mugdiga. nasiib wanaag isla 2018 cabdulaahi iyo qoyskiisa waxaa soo gaaray dhambaal wanaagsan oo kaga yimid dawladda kadib markii uu wiilkoodu ka mid noqday kumanaan arday oo nasiib u yeeshay ka faa'iidaysiga nidaamka waxbarashada lacag la'aanta ah ee dawladdu hirgelisay. marka anoo tii aan kala shakinayo oo maxaa samaysataa oo yacni maxaa qabataa isdhahay iskuulkiina meel fiican uu marayo shahaadigii sideedaadka aan sugayo aan rajaynayo ilaahay amarkiisa waxaan la dhahay dawladdii waxay amar ku bixisay iskuulaadka qaar in laga dhigay lacag la'aan laga dhigay buwaagna ay keenayso wasaaradda saas oo ogaadana la dhahay. aniga horta haddii iskuulku uu ahaa lahaa mid ku socda yacni lacagta fiida laga sii qaaday ahaa lahaa meela ahaan lahayn in iskuulka aan sii dhigan lahaa madaxweynaheena maxamed cabdulaahi farmaajo horta waan uga mahadinaa. iskuulka markii la dhahay lacag la'aana laga dhigaa aadan ugu farxay. maadadaad ugu jeceshaa maadadee waay soomaali haye ii fariis qoyska cabdulaahi waxa ay degan yihiin guri yar oo ku yaalla xaafadda buula eelaay ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir. muslima cabdulaahi cumar waa hooyada dhashay cabdulaahi, waxa ay dukaan yar oo lagu gado qudaarta ku leedahay qaybo ka mida gurigeeda. in badan oo aan halkan ku sugnaynna ma jirin wax macaamila oo soo booqday goobtan si ay wax uga iibsadaan. wixii ka dambeeya aabado inta cariiri ay u noqotay nolosha waxbarashadii xoogaa dhibay ila noqotay heer waxaan gaaray shaqadaada ku soco xataa in aan dhaho way ii noqobaysaa dan waxaan dhahay shaqadan xamaali waxa uu kumataraysa iskoolkaada iskala soco xamaaligaasaan u hahaayay qudaaraan gadgadaasaan u gadgadaay sidii aan bish ugu dhiibay aad inta ka soo qabo saan u dhahay alxamdulilah. markii dambe waxay noqotay ina oo lacag la'aan la dhaho bishii waxba ma la bixinaayo ilmihaa iska dhigtaan ina la dhaho waa ku mahadiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin. cabdulaahi iyo saaxiibadiis ayaa xilliga bareega halkan ku akhrista cashirada mawlacan yar ee ku yaalla iskuulka. doctoraysa khadiija waxa ay ka mid tahay maamulka sare ee dugsiga maxamuud mire. waxa ay sheegtay in arday badan oo ku wanaagsan waxbarashada sida cabdulaahi oo kale ay heleen fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah, taasi oo kor u qaaday tirada ardayda dhigatay iskuulka iyaga oo aan ka walwalaynin wax lacaga. ardayda waagii hore tiradooda waxay ahayd ilaa 300 400 dugsi sarena ma aanan qabin. kadib markii iskuulka laga dhigay lacag la'aan ama ilmihii fiiga laga joojiyey waxaan helnay arday capacity-gooda ay tiro badan tahay 500 600 kama aanan badnaan jirin. haddana waxaan maraynaa 2500 oo arday maadaama ay dadka xaafadda aan degannahay ay tahay xaafad dad iska danyar ah. haddii iskool lacag la'aan ah la waayo
dadka danyar ama agoon ahaado ama agoon yuusan ahayn aabihiisa oo shaqo hayin hataa waxaa dhibaato u qabaa sababtoo $10 ma dhiibi karo masruufka guriga u geeyaa mise cunugu wax ku baraa haddii waxbarashada markaa sida ay ku sii socoto waxa macquul ah geeyga Soomaaliya oo dhan dhalinta da'da yar ee ku nool inay helaan waxbarasho ku filan oo mustaqbalkooda kaafinayso. 5 sano ee la soo dhaafay dawladdu waxa ay hirgelisay dugsiyo waxbarasho oo ay ardaydu ka helaan waxbarasho bilaash ah. Muqdisho dawladdu waxa ay dib u la wareegtay 24 dugsi oo hadda bixiya waxbarasho bilaash ah, halka gobolada dalka laga hirgeliyay 26 dugsi iyadoo wadarta guud u tahay 50 dugsi oo isugu jira dugsiyo hoose, dhexe iyo sare. iyadoo laga duulayo aragtida siyaasadda waxbarashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladdu waxa ay ahmiyad weyn siisay daryeelka macallimiinta, tayada aqoontooda iyo dib u dhiska goobaha waxbarashada dalka, waxaana maanta durba muuqda miraha laga gurtay tacabka dawladda. markaan anaga ku soo biirnay wasaaradda waxay ahayd 2017 wuxuu ahaa percentage-ka dadka waxbarashada hela guud ahaan dalka wuxuu ahaa 21%. maanta wuxuu marayaa 32% oo macnaheedu uu yahay koror waxaa ku dhacay 100,000 ilaa 120,000 iyo ka badan arday ayaa ku soo biiray helidda waxbarashada. dhanka kale marka la fiiriyo dabcan waa sidee lagu gaaray iyo qaabkee loo gaaray waa arrin kale u baahan dabcan in sharaxaad laga bixiyo. sidoo kale tayada waxbarashada markii waxbarasho la helo waxa soo raaca waxay tahay in laga fakaro ardayga waxa la baray iyo tayadiisa waxa ay tahay. waxaa la fiiriyaa manhajka iyo macallinka iyo dabcan kormeer joogta in la sameeyo. runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad ilaahay loogu mahadceliyo maxaa yeelay annagu dawladdan muhiimaddeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini aadanku waxay ku kala hormaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu horey u qaado waxay ku xihan tahay waxbarashada iyo quality tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada iyo inta caruur uu soo saaro ayay ku xihan tahay. marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn inaan gelinno in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba oo aanan awood u lahayn iskuullada aynay aadaan private-ka ah inaan u diyaarinno waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarinno. wadadowrlada madaxda u ahaa qaran magacle iyo maamul dawladeedno muujiyo waan mahadine ugu daraa mar kale muuqatee madaxweyne rabaa